munaasabad lagu soo dhaweynayay wasiirka haweenka iyo xaquuqul insaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya Marwo Deeqo Yaasiin Xaaji ayaa waxaa lagu qabtay magaalada London. Munaasabadda ayaa waxaa soo qaban qaabiyay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London. Marwo Deeqo ayaa dhankeeda uga mahad celisay soo dhaweynta qiimaha badan ee u sameeyeen haweenka ku dhaqan magaalada London. Marwo Deeqo ayaa sheegtay ugu dambeyntii xustayna inay haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah ku dhex leeyihiin bulshada iyo sidoo kale arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. waxaynu caawa soo dhaweynaynaa waa wasiiradii dumarka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan Deeqa Yaasiin ma sha Allah tabarakallah waxaanu leenahay walaasheen maadaama aanu nahay hooyooyinkii London ku dhaqnaa waxaanu ku leenahay welcome to London. waxaanu ku leenahay Deeqa walaale soo dhawow maadaama aad tahay hooyooyinka Soomaaliya oo dhan mas'uulkii ugu sareeyay waxaanu ku saaraynaa madaxa korkiisa ina Deeqa yaa haseenay saarahan toobanaga gudur oo haddaan nahay dumarka waxtartanaga gudur haddaanu nahay dumarka waxtartanaga gudur oo dalkeeni hooyo saarahan dirano ugagee waxaanu ku siinaynaa ubaxyo gaduudan fariimo culculus waanu ku dhiibaynaa oo dawladeena nooga geyn doonto marka ugu horeysa waxaan kugu soo dhaweynayaa mikrofoonka bal waxaadna oran lahayd adigoo aad iyo aad u mahadsan welcome waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa runtii sida xafladan quruxda badan leh aad iigu tala gasheen ay is dhaweyntiina iyo sida ma aragtay aad u qurux badan oo aad ii soo dhaweyseen waa idinkaga mahad celinayaa isla markaas anoo og ma aragtay gabdhihii walaalahay ahaa ay soo qaban qaabiyay waqti yar inaan xataa aan short notice idin siiyay aadana ii imaateen aad idinkaga mahad celinaya wallahi horta idinka waxyaabo badan waa ka warqabtiin ka wasaarad ahaan waxaan jeclaan lahaa anoo fursadan ka faa'iideysanaya inaan xoogaa yar dulmar idin siiyo howlaha oo ma aragtay wadanka ka socda wasaaradda horta wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka waaye waxyaabaha oo aan ka shaqeyno oo ma aragtay mas'uuliyadeena tahayna waxa waaye horumarinta haweenka xuquuqda haweenka iyo waxa kale hoos yimaada arrimaha caruurta iyo xuquuqul insaanka markii ma aragtay kor laga wada eego arrimaha ugu waaweyn oo hadda waxaan isleeyahay arrimahaas oo dhan waa arrimo aad wada danaynaysaan arrimaha ugu weyn hadda fursadaha qaaliga ah ee soo socdo oo aan jeclaan lahayn in aan ma aragtay qurbo joogta gabdhaha ah ay ma aragtay si fiican ula socdaan isla markaasna ay ma aragtay garab noo noqdaan waxaa ka mid ah sida ula socotaan waxaa Soomaaliya ka socdo dib u eegista dastuurka sida la socotaan dastuurku qabyo qoraal waaye dhameystirkiisii ayaa socda waxaana muhiim ah inaan fursadan uga faa'iideysano sidii qoondadii haweenka si qeexan oo ma aragtay aan shaki ku jirin ay dastuurka u gali lahayd sida la socotaan hadda siday wax u qoran yihiin waa qurux badan tahay laakiin haddana si cad uguma sheegaysa arinta qoondada marka arintaas ayaan ma aragtay hadda aan bilowgeedii ku jirnaa marka idinkana waxaan jeclaan lahayn in aad ma aragtay pressure-ka wax nagala qabataan oo ma aragtay idinkana aad dhinaciina ma aragtay aad nagala shaqeysaan arin waxa waa la socotaan waa halgan weyn oo haweenku soo galeen garoowan ka soo bilaw garoowa 2 ilaa maanta meesha la joogo idinka iyo gabdho badan oo Soomaaliyeed qaarna maanta ay nool yihiin qaarna Allah u naxariistay ay dhinteen halgan ay soo galeen waay xanaan shidan ee warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada London.